Wasiirka Wasaaradda Caafimaadka Dowladda Federaalka Soomaaliya ay weheliyaan agaasimayaasha iyo la-taliyayaasha Wasaaradda Caafimaadka ayaa maanta booqasho ku tagay xarunta maamulka gobolka Banaadir. Wasiirka ayaa la kulmay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho. Shirka waxaa qayb ka ahaa ku-xigeenka gudoomiyaha arrimaha bulshada, xogayaha guud ee gobolka Banaadir iyo agaasimayaasha maamulka gobolka Banaadir. Ujeedada kulanka ayaa ahayd in laga arinsado daadejinta adeeg bixinta caafimaadka gobolka Banaadir iyo sidii loo xoojin lahaa iskaashiga iyo wada shaqeynta Wasaaradda Caafimaadka iyo gobolka Banaadir. Wasiirka Wasaaradda Caafimaadka Dr. Fawziya Abiykar Nuur ayaa u xaqiijisay gobolka Banaadir in Wasaaradda Caafimaadku ay diyaar u tahay in sida ugu hufan uguna mudan ay u dejinayso adeeg bixinta caafimaadka aasaasiga ah ee gobolka Banaadir. Kulanka kadib ayaa waxa ay gobolka Banaadir iyo Wasaaradda Caafimaadku guddi laba geesood ah u saareen ka shaqeynta sidii gobolka Banaadir loogu wareejin lahaa maamulidda xarumaha caafimaad ee ku yaala gobolka Banaadir.